السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وعليكم السلام. فجر وناكسن، صباح وناكسن، ظهر وناكسن، عصر وناكسن، مغرب وناكسن، عشاء وناكسن، وقت بايدين، تهي وناكسن، جمعة وناكسن. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور. ما أنت قيبتي سديدا نور دمسترايا قصة أني أوصاب سنيد. ما شاء الله تبارك الله gabadha walaashaeed iyo kooxdii afrikaanta iyo balaawidii ay wadeen aan oo dhammaystiraya maanta maasha allah tabaaraka allah. maasha allah tabaaraka allah, salaatu cala rasuulillah. bacdii oo islaantii oo gabadha soomaalida naagta lala qabay ama Zaynab saaxiibtay iyadana hooyadeed ee wixii i dhahday ma xasuusan kartaa xuruufta say u egyihiin talaasimka say usa sawirnaayeen wixii aan ka xasuusta u sheegay. duqdii waxay ii shiday filim kale oo cabsi cabsi ah. waxay dhahday yaa ummi inaa guriga ku gubta ma ahayn, waxaas wax fiican ma ahayn. shacwada ama waxa la dhaho talaasimka oo ahaa siday usa sawirnaayeen wixii aa ka xasuustay muddo ee waxaas maskaxdeeda ama daakiradeeda ku jireen. maasha allah tabaaraka allah. horta marka wadkaada soo galo waa dhimanaysaa, ama waxa lagugu sameeyo ama il ha ku qabato ama baabuur ha ku dilo ama diyaarad aa kasoo dhacdid. asaga waqtigiisa intaasuu ka ekaa maasha allah tabaaraka allah. isla markii isla nafsi usbuuci xanuunaa ku bilowday, uurku jirtaa laga qabtay, yacni micdada ay xanuunayso, hurdada tamaam ma ahan. galagaa bilowday, ani xanuunaa igu bilowday. waxaa liiga soo sheegi doonaa xaswo ama wax dhagaxa kelida galo. bacdigeed waxaa liiga soo sheegi doonaa buraa kugu soo booday. maasha allah tabaaraka allah. xanuuna iska bilowda. xanuunka waxaa ka daran yacni hurdada mirtaax ma ahan. jiifkayga wuxuu noqday jaf ama waa qarwaayaan. waxaa kuriyeenayaa anoo ku jiro kayn ama xero wax la dhaho, meel ganjeelo madow oo silig ku wareegsan yahay. hal albaab laga gala leh, hal albaab laga soo baxa, halkaas albaab laga galaa waana kayn madow. kayn waxaan ka wadaa meel silig ku wareegsan yahay. المهم دربيga dhan waa wada silig sida xabsi oo kaleeto ah. meeshaasaa ku jiraa amarba dhinac u cararaa intuu u cararaa. naagtaasaa hurdada igu cirdaysato, anoo oomanaa soo kacaa, waa daalanahay, waa irahaaqsanahay. kooxdan waxay ugu mashquuliyaan ninkan. ani ninka albaab iiga furan ma lahan. ninka waa iska celin karaa ma ahane, waa iska jafi karaa ma ahane, abkiis beri jiraa baraawo geyn karaa. laakiin dhibka jiro waxaa waaye yacni hooyaday markay hadasho hadduu hadlays hooyaday, ani haddaa fadhiya xataa asma fadhiisanayo. maasha allah nin ixtiraam badan uu ahaa, ilaahay firdows alcaala ha ka waraabiyo. nin wuxuu ahaa dadka waaweyn ixtiraamo. qofkii jinsiyad soomaaliya lagu sheegay yaa ummi adciili oo dhihi jiray, yaa khaali adciili, yaa khaal adciili, yaa cammi adciili. sheekadiisa dhan markaasaa magaciisii maxamedka waxaa loo bedelay daciini aa loo bedelay. intii taqaano ani ikasayso oo videogan fiirsanayso maasha allah tabaaraka allah way la socdaan magacaas loo bixiyay. cideena dad oo magacyo bixiyay ahaayeen maasha allah tabaaraka allah. baari dhale oo baari sii dhalo ahaa. hooyaday halkaas dhakadu ka dhunkan jiray, gacantuu ka dhunkan jiray. xataa mar qaarkood hooyaday hadday lacalla xanaaqdo iyada weligood wax miskaga hor imaanin, laakiin hooyaday waxaa waay qof marra qaliyaan ah oo aad u kulul. xataa hadday ama gabdhaha kale ku xanaaqdo ama anigu xanaaqdo ama waxsi ah ama soomaaliya laga soo wactamo qayliso xataa oo xanaaqdo. xanaaq ma jecleen, xataa laguhu ka shumin jiray, madaxuu ka shumin jiray. nin baari oo ahaa, ilaahay ha u roonaado maasha allah tabaaraka allah. qabrigiisa ilaahay waasac allah aga dhigo. maasha allah tabaaraka allah. albaab iga furan ma lahan. dadkan aniga nin inay ugu mashquuliyaan rabaan. ninaa sheegay ninyaalo waa ka adkahay, naagyaalo xataa waa iska celi karaa. bas ani waxaa diidayaa asraarta ani i qusayso inuu qof kala soo galo. majaal mala ii siinin ninka aan ku arko indhahay ayaga ku arkaan anima ku arko. maasha allah tabaaraka allah. salaatu cala rasuulillah. walaashaydaas ilaahay jannada allah ka waraabiyo waxay dhihi jirtay qalbigaa la adahay qaldhacaa tahay dantaada qabso. awoowihii maasha allah wuu ii yeeray, qur-aan uu i saaray. xoogaa waa roonaanaya marka qur-aanka la ii saaro, hurdada way ii fiicnaanaysaa. walicii adduunkii wixii dhanna iskugu kay qasan. filim jadiida bilaaban rabo. ninkii wuxuu yeeshtay dano oo riyaadka yeeshtay meel la dhaho cisbada ama diiwaaniyadda ay ayaga iskugu tagaan dhalinyaradooda afrikaanta ah. dadkan ciyaal xafaayada yaqaano waxaas.
guryaha iskaabulada ee ayaga iskugu tagtagaan yacni nimankaasoo dhan badanaa meel guryaha caailada ma tagaan meel u ijaaran shugolo taqriiban 2 qol iyo musqul iyo saale ee diiwaaniyada ay dhahaan meeshaas iskugu tagi jireen ama cisbaday dhihi jireen ay iskugu tagi jireen ninkii markaas iskaabula lagu soo dhaweyn jiray meeshaasaa uu ka heli doonaa quto loo dabaray markuu soo noqdo Afrika ka soo noqdo markii ceebtaada ilaahay banaanka keenayo gooni waaye ani bari iska ahay iska badlaa baas ma arkatid camal safara soo galay riyaada aadaya ani waxa dhahay riyaad ma socdo ani dad riyaad ma iga horeeyo guriga cideena ku geynaya anina dadkaas inaan kasoo horjeedo wuu ogyahay aanan jeclan inaan aado sida hore fiidiyoyaasha idinku soo sheegay dadkaas dad isdhexgalgalo waaye anigani mala kala hagoogto anigana qof isdadado marka adoo isdadadan lagu arko il oo khaas iyo dayma cajiib ah lagu fiirinaya waxa lagu malaynaya yani si kale noo arkaan anaga Soomaali ahaan markaan nahay Soomaalida qofka ajnabiyada ah hadii isqaawiso oo wiilkooda qabo ama haday isdaboosho ma faragashtaan dadka Soomaalida laakiin dadkaas ajaanibta ama Afrikadaas kaleeto si kale ku arkaan adoo taaganaaba lagu jafaayaba waaba dareemay hadalka hadaadan fahmeyn hatta meesha inay jafid ka jirto markaan anina waaba isa soo laayno oo isbaara isu soo dhiganay balanaaba noo taala maxaa ani ii dhaweeyay marka cabsina way haysaa waswaas iyo khanaasna waan ka qaaday qof oo wax si ka noqdeenna waa ahay waan diiday anigu ma raaci karaan dhahay waa ku kaliga adi bax inta ma joogaysa hadaa rabo ciidana u tagaaya hadaa rabo inta iska joogay hadaa rabo siinima aadaya iska bax ma sha Allah tabaaraka Allah waxa loo dibaray qito oo mar jahannamiye baaburka oo ku baxaayo oo rabo inuu ku baxo kiisa maaha wuxuu ku baxaya baaburka qonsuliyada la dhahaaya ku bax wuxuu wadaa naag oo nin oo asxaab ay yihiin oo naagta shaadiyad qabo iyo hal cunug baby oo wiilay wataan Côte d'Ivoire waaye ama Ivory Coast dadka la dhahaayo ama saaxil العاج dadka la dhaho waaye ninka naagtana tashaadiyad waaye cunugay u leedahay oo roon oo cunug adag ay adi sanad iyo bar meelahaas jiro taqriiban 2 sano jiro ay wataan ma sha Allah tabaaraka Allah baaburkaas waxa lagu sameeyay balaaq waxa la dhahay ninkaas saas wuxuu wadaa tahriib oo wuxuu wadaa riyaad xirigii iyo qotadii iyo wixii la sawiray dhan wuu soo bixi doonaan mahma kaan markii waxa ay shaqada tahay shaqo oo qonsuliyad ama safaarad wadankan nidaamka u degsan waxa waaye ma la soo faragashto yani qofka waxa dawladiisa la xisaabtamayso wax la dabaray oo wax hore loo diyaariyay ee noqotay asagii laakiin wixii la dabaray ani magacayga ku jiro goormee la arki doonaa markuu Afrika ka soo noqdo asagana xanuuna ku soo boodo oo laabta laga haayaa يعني gudaha laga haayaa yani laabta waxa ka wada uur ku jirta xanuun uu dareemaya waa huraaya isbitaalka uu tagay qorxam iyo wax kale ma laga soo sheegin xataa gaasa qabtaa ma la dhihin bas qorxa fil micda la dhahay ama wax yar oo jarx kaaga yaalo daawooyin yar oo yara la soo siiyay hal kaniini oo isbuuc wadaayo iyo hal kaniini oo maalin u dhaaf uu cabaaya bacdeen soo noqaa la dhahay waxa uu dareemayeen wax weyn waaye ninkii wuu isgurayaa wuu soo yaraanayaa caadi ma ahan ani bilihiyga soo weynaaday ma sha Allah tabaaraka Allah daloogayga wax yara ka dhiman safarkii galay safarkii markuu baxay balaaqan uu diyaarsan yahay dadkan markuu meel dhaxsii maraayo meeshaas laga helay wali istaajiyay wali xiray wuxuu xirnaa taqriiban ilaa 4 maalin oo goboladaas dhexe ku xirnaa wax u tagaalo waayay anaga waxa la dhahay waa lagu soo jaajuusay saas darteed aan kuula degnay anaga shaqo kuma lihin waxaad isku toosan yihiin laakiin in oo dadkaas kula saaran gaariga aad tahriibinoo sidaan loogu soo sheekay dadkii magac la wareystay asaga magaciisa la wareystay dad isla haadeen noqdeen dad isu magac tirin kareen noqdeen sheekadii way halaawada maxaa la rabaa qofka in la tago oo lagu soo bixiyo kafiil xuduuri lagu soo bixiyo waa loo waayay gabar walaashay nin qabo oo jizaani oo markaas la hadlalnay ninkaas soo kafiishay jidda loo soo wareejiyay
jidda la keenay kafeel xuduuriyaa lagu soo bixiyey waxaada soo toosiso soo arrimahaada iyo waraaqadahaada cadeyma noole imaa waa la dhahay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah horta musiibada asaga meeshaas ee ka taabata dhab xanuun wuu kuu jiran yahay daawooyinka hadduu dhamaysto muraajacada aada xataa weli wuu jiranaa sidaa lagu xiray sifiyaa kafeel xuduur lagu soo deeyey xaaladii way isbedeshay kafeel xuduur waxaa waaye muddaad banaanka joogaysaa danahaada soo dhamays bacdin waa lagu baahan yahay soo noqaa laga wadaa yacni maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah wuu baxay intii oo warqadihii iyo arrimihii iyo qunsuliyadii wixii ka dhadhamaysanayay xaafadii wuu tagay xaafadii wuxuu kasoo ogaaday warqadda lagu sawiray balaaqa wixii la qorqoray wixii lagu dejiyey aniga iyo cunugeyga inaan ku jirno lan ani soo baxo uu yiri inaan raaco ani waa diiday saasaa dadkaas ku raaceen warqadii uu soo helay dagaaluu galay mashaakil ways dhameeyeen dhexdoodii isdilo waa lis farsaalay aniga mana u tagi jirin mana aadi jirin anooba baabuur dowlad dhex saaran dadka rabeen inay cunaan waa dadkan samuel doan madaxweynuhu ahay dad oo dhildheel ihmiya ah madaxweynahooda miiska saareen way isdhameeyeenaan ku dhahay asagana waana xanuunsan yahay casaabiyadiisa caaliya noqotay hadalkiisa tiro badan oo noqday ninkii maskiinka ahay oo qof walba markuu arkayo umi adciili yaa khaali adciili yaa hebelo adciili dhahay weligiis horta ani asaga war ma iskala hormaan walaa hooyaday kuma uusan afcelinin walaa dadkayga ma uu la murmi jirin bas naagtaalna layga dawoodwadi jira naagta sidii u socotaa sidii arrinteeda u socotaa naag iga hor imaan karta ma ahan filinkeeda iyo beenteeda iyo dadkii beenta ii soo sheegi jira horta walaashay jannada allah ka waraabiyo waa ogaan doonaa anigaa shaqsiyan raadin doono naagta maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah bacdigeedii ayaga way isdhameeyeen sheekadii kafeel xuduuriga intii lagu maqnaayo oo banaanka uu ku joogay wixiis inuu isku toosista ee ahayd yacni taakaa laga saaray meesha shaqada waxaa laga dhigay dambiile waxay ayagu isku ogaayeen ama nin ayaga le ay raaciyeen oo isla asxaabta ee wixii lagu balaaqay iyo ninkii balaaqay iyo dagaala dhexmaray iyo animaa i balaaqay iyo yacni animaa i dowladda igu dacweyneysaa habeentaas iga sheegay warqadiina guriga waa laga helay oo aniga ku jiro magaceygana ku jiro aniga naftirkeyga in la ii xiraa la rabay waana alaabtan ay afrika ka keeneen sixirkan iyo balaayadanni waa i haayaa laakiin alxamdulilah shukri bilcaalamiin qof saan gaabana ahay qof gurigeeda iskaga jirto af gaabana ahay mana dhexgala alxamdulilah ilaahay ayaga saasuu iiga fakiyey maasha allah tabaaraka allah ninkii casaabiyadiisa caaliya noqoto mashaakilkiisa wuu tiro badnaaday buuqiisa wuu badnaaday waqtigii markuu u dhammaaday oo muddadii lasoo siiyey intuu banaanka ku joogo wixiisuu isku toosistay afrikuu aaday xanuunkiina wuu la dhoofay intuu afrika aadin isbitaal la dhaho xaaladii way sii haysaa mustashfa almaqribi ama isbitaalka maqribiga la dhaho aa la geeyey waxaa lasoo saaray ashaaca maqtaciya gudaha laga fiiriyey kii xumaaya laga baaray waa laga waayey nafsa isbitaalka jidda al ahli wuxuu kusoo sheegay oo ah qurxada lee lagu soo sheegay isbitaalkaas kusoo sheegay laakiin xanuunka uu sheeganayo wax culus waay xanuunka uu sheeganayo wuu huraayaa xanuunka uu sheeganayo caadi ma ahan yacni shaaxib waay yacni sidii baraf meel la saara camal waxaad dareemaysaa muddo wuu sii dhalaalayaa ama wuu sii dhammaanayaa maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah ninkii waqtigii loogu talagalay uu muddadii dhammaystay isbitaalkii iyo waraaqadihiisii iyo wixiisa isku toosistay alaabihiisa isku toosistay meeshii laga rabay uu tagay dadkii isla shaqeynayeen qunsuliyadda waxbay u qaban waayeen sidaa wadankiisii uu ku aaday mudduu soo maqnaay mar walba waa isla xiriireynay maasha allah tabaaraka allah wixii oo xiriir wiilashan iyo kuwa ilmo adeerada ay yihiin iyo masaariif iyo itisaalkeena waa tawaasuleynay maasha allah tabaaraka allah laakiin ani duruufteyda way iska adkaatay xaaladeyda way iska adkaatay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah bacdigeedii waxaa dhacday dahbaa jiray oo aniga aan haystay oo ah 6 jijin oo maharkaygii dahabkii lagu guursada ahaa iyo hal taqam iyo taqam gurigu joog ah iyo faraantigiisii 6 jijin hal jijin iyo taqamka weyn wiil walaalkay oo dibadda loo Kenya loo diraayay iyo 2 gabdhood walaalahay ah aan u gaday saasay ay ku aadeen dahab yar iyo 5 jijina iyo hartay
maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah. ninka intuu bixin ka hor mashaakila i qabsaday oo mashaakila as qabsaday ahaan aan dhahay mashaakilkaada ku danaysa 5 jijin dahab ilaa 6,000 riyaal gaaraya waaye dahabka shalay asaa ii gaday birina adaa ii gadi doontidaan dhahay saasaa lagu kala baxay ninka xanuunku waa kasii daray wuu dhoofay wadankiisuu tagay sida aan u iloobin hadhow qisadaas dahabka maasha allah tabaaraka allah ani xaaladeydu waxaa ii hartay hal taqam oo yariisi ama katiinad iyo dhegdhega yar oo su-eg iyo laba faraanti ay ii haray maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah. ninkii xagga markuu sii tagay wuu sii darsaday bardu wuu isdaadaaweeyey acshaab iyo dawo iyo kameruun iyo meelahaasuu daawo usii aaday mudduu maqnaay aniga cunugii waan dhali doonaa maasha allah duruuftii way iska adkaatay dahabkiina qof isku ilaalinayso ilmooleya iska ahay wiilasha ma ii gasanaan waxbaa la ii keeni jiray badanaa siinabta ninka qabo iyo kuwo kaloo macalimiin oo guriga markaas igu soo degdegi jireen laakiin kooxdii aan isdagaalni isuma soo dhawaano maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah. bacdigeedii qof walba markaas wuxuu awoodo cunuga caanihiisa farmashiyaha tagaan waa iisoo gadaan laba gasac xafaayad waa la iisoo gadaa laakiin aniga waxaan ahay yacni qof oo xanuunna dareemaysa laakiin cidda ma iga warqabaan inaan jiranahay yacni waa seexdaa laakiin hurdada ma laba yacni hurdada qof oo ku irtaaxsan ma ihi intaas waa riyoonaa intaas waa qaruwaa intaas waa riyoonaa waxbarashadii aa ku xirnaayoo dhan waa kasoo laalaabmay waxaa noqday inaan qoro gabayaan qori jiray gabayga carabigaa turjumaa gabayo waxaan qoraa soomaali qisadeyda ii bilowneed buugaa wax ku qoraa qoraal aan badsan jiray bixitaankii iyo taxfiidkii iyo meelihii aadi jiray waa kasoo laabmay dadka inaan ku degdega ma ogoli maasha allah xaaladeyda xaala iska adagaa noqotay dhalowgeygina wuu soo dhawaaday maasha allah cunuga weynaa xoogaa si fiican iiga jiraday xoogaa yaroo dahabo katiinad iyo dhego iyo 2 faraanti isku ilaalin waa haystaa maasha allah wixii cafish ahay iyo gurigii dhanaa iska soo kala gadgaday hooyadeeyaa ag imaaday hooyadeeyaa la soo degay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah. xaaladda waa iska sii adkaatay waa iska fahmi kartaa qof ilmooley oo ninkii ka tagayoo wadan kale ka aadayoo ninkii xanuunsan yahay ani xanuunsanahay qof uma sheego qofkii markaas wax i weydiiyo waa isleeyahay qofkan amaa ku sheeka balaarsataa lee la sheekaystaa moogi gabadhaas walaasha qof kale wax uma sheego salaadeydaasa iska dukataa qur-aankaygaasa iska akhriystaa alxamdulilah shukur bilcaalamiin ilaahigaygaasa iska aaminsanahay wuu isoo wacaa qur-aankaygaasa iska akhristaa wuu isoo wacaa waa isla hadalnaa wixii arrin waa ka wada sheekaysana laakiin xanuunku wuu kusii weynaanaya ninkan waa xanuunsan yahay laakiin xanuun ula socdo ahaayo maasha allah qitadii iyo barnaamijkii ee ciday rabeen afrikaanta hadda si fiican ay ugu hirgashay 2 meela kala tagnay aabay safiyo way soo wacaysaa way caytameeyay maxay ku caynaysaa wiilashaan iisoo qidmeynayo miday marka magaciisa taqaanaa sidii ku magaciisa ay ku sheegtay xataa waa fahmi waaye marka waxaa dareema qof oo xiriir dadkan la leh inay tahay dadka iska reer magaalka xaaladeeda inay saas leh kusoo ekaata ay iisii cadaatay hadda nin anin fara kuma hayo ninkii wadankiisu aaday weli way caytamee ninkaanay ku aflagaa doonaysaa aniga danteyda maba kasii galin telefoonkeyga waa haystaa hooyadee ma dhaho waa liisoo caayaa dadkan ma dhaho waa liisoo caayaa la-anna naagta walaashay waxay ii sheegtay inay guriga gabdhaha habaryartay ay imaato yacni anigana lii caynaayo yacni ani waxay noqotay inaan dad iska horkeenin waxa ay ayaga ka fikirayaan ama ay iidi ka fikirayso wax kasii weyna ani i haysto kayn ama xayndaab waxa ugu jiraa dad afrikaan buuqiyaa iska ka haysto aabahay iyo maxaa la dhahaa la taliyahaygii iyo waalidkay iyo walaalkay dhan waxaan ka dhigtay awoowaha aabahay adeer u yahay awowahaasaa u tagaa iyo ayeeyo iyadana way dhimatay yacni naagtiisa ayeeyaday ma ahan laakiin awoow qabaa saasa ayeeyo u dhahaa yacni islaan yarna waa naag weyn ma ahayn iyadana way dhimatay ilaahay u naxariistay maasha allah tabaaraka allah ayeeyadii awowhiyaa sirtii u sheegay si fiican ula sheekaystay maasha allah qur-aanay isaari jireen intaan lee guursanin ka hor oo ninka sacuudigana hadda ka hor saasoo awowahaas qur-aan ii saaray
maasha allah markaan quraan ani akhristo oo rakisaya maba lahanbo ma sariir ma saarni laakiin markaa seexatay oo soo kacday oona dareemaysid inaadan seexan waxaan dareemaya waxa la dhaho irhaaq marra taayar ahay marra waa daalanahay gudaha ka daalanahay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah quraan badan oo isaaray ilaahay naxariistay ruqay sharciyadu ii shidi jiray tahliishan ku qabiiso ii dhihi jiray maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah markii dambe habartii agteeda u dejiyay habartii agteeda hooyaday agteedan sidii ku joogay waxaa soo dhawaatay duruufteedana way sii adkaatay alaabihii wixii dhan waa iska soo gadgaday wixii oo dhan anina ma gadgadin gabadha habaryartay ninkeeda suuqa ka shaqeynaya nin carabaa qabay iyo hooyaday iyo dadkaasaa waxa dhan yacni waa la ii adeegay ilmihim qof guri kusoo aruurtaa ahay oo rabtay dhalid inay isku diyaariso ninka wuu xanuunsan yahay laakiin xanuunkiisa dadkaa maba u sheega dad maanta oo dhan naag le ka sheekeynaa naag sidai iigu sasaysaa dhalinyaradan oo ninkan wax u caanahay ii keenaan xafaayaday ii keenaan marmar qaarkood adeegay ii keenaan telefoonka bidiqa waxaa u malaysaa inay ii ogtahay meesha ku jira naag wuxuu kusoo aflagaadotaa xataa dhalinyaradan iisoo adeegayan alaabta ii keenayan alxamdulilah naag aniga iimaankeeda qabto sharafteeda dhooranayso sitilbeyd ahoo ehelkeeda la joogto gurigii habarteed imaatay hadda ahay laakiin subxaan allah isbuucan hadduu hebel ii imaado telefoonka kusoo caytamay way ogtahay wax aan dareemo marka dhalinyaradan inay cilaaqa la leedahay maasha allah tabaaraka allah salaata cala rasuulillah ani waxaa dhaha sakiin laq saaxiibay aniga faadimku iyo aada u mashquulsanahay aadaa tayda ii haysataa marka dad oo mushacwidiin ma iska ilaalinaysaa naag soomaaliyeed oo shaarca isdhigta ma iska ilaalinaysa iigu dambaabi jirta gabadhaas ilaahay ha saamaxo iyo filinkeeda jawaabta ay kusoo dhammaysa xasbi allah calayha wallaahi bilaa dadka qaarkood uqubay shaqaysanayaan maasha allah haddaan maskax khafiif ahaan lahay oo doqonad ahaan lahay gabadhaas waxay sabab u noqon lahayd inay reerkeyga burburiso wax aan la yaabay ay ku jawaabtay fil akhiirkina maasha allah tabaaraka allah markii dambe foola ay qabatay hadda ka hor idinkaga soo sheekay waxaan idhaha anoo fool ii haysaa gabar walaashay iyo islaan habaryartay dariiqa igaga tageen hadda ka horna waa laysku qabsaday sheekadaas yacni wax aan soo alifa ma ahan dadka i fiirsanayo u yaqaano iyo haddaba hooyaday way noo sheegay way ogtahay maasha allah hooyaday markaas maxay u adkeen wadanka way ku cusub tahay maasha allah gurigii awowihii anoo kasoo baxay oo gurigii hooyaday aniga iida isla socono iyo cunigiina aan gacanta ka wato nabar i qabtay anoo shaarica taagan shaarica bakistaanka uu igu qabanayaa foosha intaa soo soconay mobaylka walaashay ka wacay anima wacin hooyaday wacday waxay tiri isbitaalka daqistaana ku jirnaa ii imow ama cliniga wax la dhaho mustawsafka meeshaas iigu imow meeshay noogu imaatay waxaa la joogaa saaca 6 ama qorax dhac waaye maasha allah tabaaraka allah waxaa la dhahay iqaamaday leedahay isbitaalka dowladda iska geey wax yar 2 faraanti iyo waxa ii soo haray hal dhaga katiinadii xataa waa isticmaalay maasha allah tabaaraka allah salaatu cala rasuulillah ninkaada muu lacag kuu soo dira muu wax sameeyo hal mar oo $10 ii soo dira ninka wuu jiran yahay ayaga waxay rabaan inaa calaacalo kaanya makaan fi qadiimi zamaan saana jirtay kana jirtay ninkii saan waa inaa dhaho anina sheekanina baki ilaalinooyaa wax walbana horta tawfiiq min allah waaye ilaahay taas i waafajiyay laakiin sidii gabdhaha qaarkood hadaa ahaan lahaay waaw iswaali lahaay dhulka isku garaaci lahaay nin male la aroosi karo ama saan ama madir eesh ama kanaan sameynaa hadaa dhihi lahaay mar walban waxaa dhihi jiray yaa muqiith aqithni aan ku duceysan jiray ilaahay dadkan iga badbaadi ilaahay shartood iga badbaadi ducada iqaathadaas ama muqiith aqithnigaas aan mar walba ku celcelin jiray markaa saas u fiirisid dadka qof bini aadane oo shar ka samaysan waay dadkii dad oo inay ku naxariistaan ayaad ka rabtid oo adigana kula maagan masaayib waay maasha allah tabaaraka allah intaasoo tacba ah soo maray markaa runta ogaaday ma shalaynin laakiin intaa ku dhex jiray waa mudaayiqoon jiray ama waa cariirismi jiray yacni waa ciishoon jiray laakiin fil akhiirkii safiya markaa nihaayadeeda ogaaday yacni asaga
tiisaa meeshaas ku ekeed mara yacni waxaa dareemay inaa ahaay oo ilaahay iga dhiga min alfaa'iziinka yacni inaa cadow oo dhan ka guulaystay yacni xaasid oo dhan inaa ka guulaystay markay saas iigu jawaabtay waa naxay an naftirkeyga waa naxay marna waan farxay oo waxaa noqday faquur fi nafsi yacni alxamdulilah ilaahay quwaddu isiiye ah faquur fi nafsi ku noqday oo intaasoo sano ilaa aan 3 cunug ka dhalo aan naagtaas u sabraayay saas iigu soo qarweysa afrikaantana ay saas ii soo jafaayeen markii yad wax liiga qaadi waayey iyo gacan u tag sixir layla galay alxamdulilah shukr bilcaalamiin insha allah qisadii waxay noo mareysaa ilaa 26 gaartay video 9aada noogu soo sameyn doonaa ilaa meeshay ku dhammaato caawa ama maanta meeshaas aga baxaya waa maalin jimce salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu